waxaa halka kan ka anbabaxay wafti ballaaran oo hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga ahna murashaxa xisbiga wadani oo safar shaqo u tagay dalka Kenya safarkaas ujeedadiisu sidii aad wararka ku helayseen wuxuu daaranaa in runtii waad ogtiin duruufaha dalka ka jira guud ahaan waxaynu ku jiraa xilliyo adag oo ay ka mid tahay abaaro runtii baaxadli oo dalka saameeyay dhammaantiiba waxaa jira duruufo kale oo badan oo inagu gadaaman oo ay ka mid tahay xoolihii noolaa ee loo dhoofin jiray dalka Sacuudiga oo suuqii ugu weynaa ee xoolaheenu tagi jireen oo la joojiyay waxaa jira duruufo guud oo dhaqan-dhaqaale oo jira oo dalka ka jira xisbigu iyo gudoomiyaha xisbiga isla markaana gudoomiyaha golaha baarlamaanku iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka qaran ee saaran waxay u tageen safar dalka Kenya oo aad ogtihiin maanta inuu yahay xarun ay isugu yimaadaan ama ay fadhiyaan wadamada caalamka iyo hay'adaha caalamiga dhamaantood intoodii badneed halka ay joogaan waxana uu ugu weynaa wixii loo tagay in la gaarsiiyo oo fariinteena iyo duruufaha inagu gadaaman dhammaantood la gaarsiiyo caalamka oo la tuso dhibaatada baaxadda ay leegtay la gaarsiiyo loo gudbiyo abiil iyo baaq inay ka qayb qaataan dhibaatooyinkan taagan sida xal loogu heli lahaa runtii sida aad ku hesheen wararka ilaa iyo 7 safaaradood bay la kulmeen waftigu waxay kalmoon la kulmeen urur caalami oo urur goboleedka IGAD ka mid yahay dhammaantoodna kulamadii lala qaatay waxay ahaayeen kulamo midho dhal ah oo EU-da kulamo midho dhal ah oo isleenahay wax badan bay u tari doonaan dalka iyo dadka way u tari doonaan ma ahayn wax aan islaahdo sas baa laga muujin karaa ama cid bay damqi kartaa arrinta noocaas oo kale ah laakiin waxaan u maleynayaa raggii meelaha ka qeylqeynayay rag naftu meel ka baxdo weyday uun baa doonaya inay uun maaragtay kula soo galgashaan xisbiga iyo maxaa la dhaday madaxdiisa dhibaatooyinka ay ka filin kari waayeen ama iyagu ay ku filan kari waayeen ay ahayd inay iyagu xal ka gaadhaan ay iyagu ahayd inay horseed u noqdaan ay iyagu ahayd halka ay kaga habsaameen xaflado iyo marba fooladayn dad maxaa la dhaday aan runtii hadda aanay munaasib ahayn inta ay ku fooraraan ay ahayd tan inay hogaamiyaan waxay ilaaween in xil ka saaran yahay xisbiga iyo xubnaha siyaasiyiinta ah xisbiga ka tirsanba dalka iyo dadka in xil ka saaran yahay haddii xitaa ayan ahaynba iyadoo uu speakerkii nala socday haddayanba ahayna waxa weeye guud ahaan xil baa wada saaran maxaa la dhaday mas'uuliyiinta guud ee xisbiga xil baa wada saaran ashkhaaska ama muwaadiniinta guud ahaan xil baa wada saaran nin walba meeshii uu gaarsiin karayo arrinteena inuu gaarsiiyo waxaan maqlayay nin wasiir ka ah wasiir dowladka wasaaradda arrimaha dibadda shalay hadlayay oo hadalkiisii gaarsiiyey inuu yiraahdo haddii aanu speaker ahayn Cabdiraxmaan waan xidhi lahayn waxa laga yaabaa wax kale ka hadlinayo meel buu rabay hadalkiisu inuu gaaray intaadii ratiri